نقول بحساب حالة جود إسبيتال قبل كنقال. أهلا وسهلا مرحبا بكم راديو قروي ستار قروي أدبنت مدعنا ستار قروي سأل الله سؤالين وستار جود قبل كنقال أما ستار كفير الكار حالتها لو سو جودية يعني حرض عفنا دي هو يعني قبل كنقال نسلم مركان وهو ستار وياه ستار جود وياه لوجي ماذا نوال كليه معها وحلوي ماذا قبل كسول ودرس كنا وحلوي ماذا قبل عين بس ندرس لا قبل كنا وحلوي ماذا قبل كركار بس لا درس وحلوي ماذا مد أنت وحلوي ماذا ريسيف اريا يتوبي قدير هاي حلوي ماذا وهذا أنا كل هذا يشوف عندك كي ريسيف اريا يعني أو عفمات الوضع بيستالك استالك سال ساعتين ماذا وياه يعني ريفيرال هوسبيتالكو هو شقيا أفر لا تنقصع waxaa ka howlgala 13 dhakhtar iyo dhakhtarka qalliinka 13 dhakhtar oo junior dhakhtarka qalliinka 14 dhakhtar ayaa ka howlgala 13 dhakhtar waxay galaan shifts oo 24 saac dhakhtar ayaa 24 saac ku qoran oo heegan taagan saacad kasta iyo daqiiqad kasta oo bukaanku yimaado ku helay dhakhtarka joogta waxaa ka howlgala 35 nurse iyo umriso oo isugu jira oo iyaguna kala qaybiya oo ku kala qaybsan 24 saac 8 saac ay galaan shift ساعات كستنا قف شغالة يا شغل شغالة كلا يبدلا ومرنا ستارك مفارق من نقطة شغالة من نقطة ستارك سيدا شوك تدا أغلى تنك ساعة يو شغالية وحوا دي قبل شو روبيا سي لح بقولي كونتون إلى سديد بقولي كونتون قف وقول إنه قال كلية مركب لو قدر قولها كله ودد مليون أبف أملا مليون يبرق بدوي أقسم أيده حاجرته إن ضد دعوة قلبت سبيتال كلا كاني بل كورن dadkaas xagee wax ku soo noqdeen siyaasi hadda wuxuu qabaan gaari ay la socdeen ay waxa yimaadeen kala tuulo amiga oo garowdo magaalada garow ay soo socdeen gaari ayaa la qalimay oo la gadoomay 8 qof ayaa ku dhaawacmay 8 qof saddex kamid ah xaaladooda waxay caadi wayna fiican yihiin 5 qof ayaa isbitaalka lagu dabiibay la jiifiyay mid kamid ah ayaa xaaladiisu khatar tahay oo xaalad kooma ku jira oo madaxa dhaawac xoog laga qabo inta kala dhaawacyo waa dhaawacyo aan la tacaali karno sahlan ninka ayaa ugu culus oo aan u rajeynaa ilaahay inuu ka fududeeyo dhibka haysta deegaanka uu gaarigu kula soo dhacay waa xagee ma aan sheegi karo meeshay tahay laakiin waxay noo sheegeen inay tuulo ka yimaadeen waayahay ayada waxaa jira warar kale oo iyaguna sheegaya in isbitaalku xirmay oo gaar ahaanna baraha internetka lagu soo qoray warkaas lagu soo daabacay iyadoo isbitaalka ay soo wajahaysa sida la sheegay xaalad daawo la'aan marka maxaa ka jira iyaga wala laga cali isbitaalku de inuu xirmay iyo inuu xirmayn inuu shaqeynay inuu shaqeynayn dadii laftiga ka jawaab karaa oo indhaga ku soo aragtay isbitaalku inuu shaqeynayo iyadoo wali xilli habeen ay tahay oo xilli wali habeenimo lagu jiro sida uu shaqeynayo qaybihiisa kala duwan sida uu shaqeynayaan emergency inta qof wataalay dad dhaawac yaalin dad buka yaalin dad kooma ku jira yaalin kuwa laga keenay hadirtan uu yaalo qof bukaana oo kooma ku jira oo laga keenay meel aad uga fog oo laga keenay gobolka Sool sanaag laga keenay xilgalool ayaa yaala xaaladan kale lagu adeegaya dadka gaari la soo dhacay shaqadiisa ayaa yaala dad kale oo magaalada laga keenay ayaa yaala wasun soo cabiyo ayaa yaala kuwa gaari soo jeeray ayaa yaala intaas oo qof oo kala duwan ayaa emergency yaala oo inta loola tacaalaya isbitaalka xaaladana joogno waa tahay agasime isla warkaas sunta aan sii daba raacnay 11 qof baa jiray oo ku soo sumoobay deegaanka kala bayr tuulo hoos timaada dadkaasi ayaga hadda xaaladooda see weeye 11 qof maxaa ka baxay maxaa see noqdeen xaaladooda dadka dhamaantood waa isbitaalka ayaa lagu dabiibay iyagoo wanaagsan oo fiican ayaa laga saaray isbitaalka dhamaantood caafimaad qaba gabadha sunta cabeena wasaaradda caafimaadka ayaa la wareegtay oo baaritaan ku sameynaysay ilaa hadda jawaabta ka soo baxdayna ima soo gaarin wali waayahay ugu dambeyn maxaa ugu baaqaysaa bulshada ku dhagaysanaysa oo ku aadan dhinaca caafimaadka hadday ahaan lahayd iyo dhinaca dadka yacni buunbuuninaya in isbitaalku xirmay walaal isbitaalka dee qof kale uu xirmay waa qof waa propaganda isbitaalka waxaa la dhisay oo la furay anigoo shakhsiyan agaasima isbitaalka oo aan dhalan haddana maanta ana nin weyn oo dhakhtar oo mas'uul ayaan waxa oo dee xilligii mas'uuliyadda laga jiray jooga ayaan mas'uul ka ahay waxaan filayaa wiilkayga iyo wiilkiisu inay u adeegi doono marka isbitaalku waa xarunta noocaas ah oo jiil ka jiil la iska dhaxlayo oo soconaya isbitaalku waxaa iskale bulshada
Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland gaar ahaan reer Nugaaleed ayaa iska leh isbitaalka hadduu xirmo maanta oo labada la isku xirmo u shaqeyn waaye cidda uu ka shaqeyn waayey oo u adeegi waayey oo ka xirmay waa bulshada reer Nugaaleed oo aan filayo dadka propagandada sameeyay inay ka mid yihiin oo sida sheeganayaan iyagu haddii uu fiicnaado oo horumar sameeyo oo adeeg fiican sameeyo oo meel si fiican u adeegaysa noqdaan dadka ugu horreeya oo u adeegaya waxa weeye waa ummadda Soomaaliyeed waa dadka reer Puntland waa dadka reer Nugaaleed oo isbitaalku yahay way sidaa darteed propagandada ah isbitaalku wuu xirmayaa ama waxba la tacaali waayey ama wuu baaba'ay waa iska hadal iska joogtaa haddaan kuu sheego sanadkan gudihiisa inta isbitaalka lagu jiro yani servicekii usoo kordhay waxaa ka mid isbitaalku wuxuu helay koronto lacag la-aan sanadkan oo solar ku shaqeysa isbitaalku wuxuu helay biyo joogto ah oo shirkadda Nawako ay u samaysay u gelisay oo ceelka laga soo jeeda agoonta sanadkan gudihiisa wuxuu helay dhismaha qaybta umulisada umulaha iyo hooyada iyo dhallaanka ayuu helay oo dhisma casri ah qurux badan oo isku xiran oo adeegiisu dhameystiran ah sanadkan gudihiisa isbitaalka waxaa loo dhisay masaajid weyn oo kii hore ka wanaagsan oo ka weyn sanadkan gudihiisa isbitaalka waxaa loo dayactiray qaybtii hore ay hooyada iyo dhallaanka ahaan jirtay ayaa la dayactiray oo dib loo habeeyey sanadkan gudihiisa 2 jeer ayaa isbitaalka la keenay qalab casri ah oo aan laga helin dalka sanadkan gudihiisa ayaa isbitaalka waxaa lagu sameeyey yani 200 geed oo talaala lagu beeray oo lagu qurxinayo waxaa ka howlgala sidaan kuu sheegay intaasoo dhakhtar oo aan isbitaal garow hore u joogi jirin sanadkan gudihiisa isbitaalku wuxuu helay surface ah in hooyada adeega uu sameynayo isbitaalku xilliga ay uurka leedahay iyo xilliga dhalmadaba uu free yahay oo lacag la-aan yahay oo hooyo kastoo Soomaaliyeed oo soo gaari kara isbitaalka xilliga ay timaado saacadda ay timaado waqtiga ay timaado ay ka helayso adeeg joogta oo degdega oo lacag la-aan يعني أنت سووا استالك سمعني أو سنة جديدة أنت هاي يعني سببت له يراه وحرمية أما وشغلين واي I don't know بدي واحد هاي يعني ولقيت كمان ولقيت استالك كرو هرنا كمان ولقيت شيرين أفرد تمن دختر أو شوكتا أو شفت الجلية ساعات بساعات سو بدلية مركز استالك حلو وفعلا اللي يراه سريع ما لي هو أنت سيدنا ربنا سيدنا هذا أوي هاي وسيك في عمر ربنا هنا نساعدنا ونسوينا لكن يعني وفي عين يستالكو وشغلنا وأنا كنت داري إنه سي شغير إنه سي هرمرة هذا أنت كسي في عنه وسي قبته. وين يعني تلذك أدن يعني بالشدة يتشين اللي هيدنا عاقمة. بالشدة وحنوش شيء دنيا ولا خير جرو سيبر هير نقالات وحنوش شيء هنا يستالكو إنه يستالكو دي ملكية دي سأيجي وسكليهن دولة وحيل هذا ما ملكيس وقع عنكو هاي لكن ملكية ده وحاسكال بالشدة أي أسكال هذاك وقمنا وحاسكال بالشدة ما أنت عدونكو على مريا لهم ولا يوجد بي isbitaal ama adeeg ay dawladdu rangarayso oo adduunku waxa loo gudbo waxa la yiraahdo community hospitals yani isbitaal ay bulshadu iska leedahay bulshadu iyadu support garayso samaysato ka shaqaysato ayaa loo baahan maanta casriga la marayna in yani kuma faraxsan anagu in isbitaal garow inuu sidan ahaado yani hadda sidan uu adeegayo anagu shakhsiyan kuma faraxsan sababtoo ah isbitaalada adduunka yani bulshooyinka nala midka adduunka jooga isbitaal keena ka fiican ay leeyihiin marka waxaan doonaynaa aan ku baraarujinayna ummadda inay samaystaan oo ay ku dadaalaan isbitaalkooda support gareeyaan contribute gareeyaan laqaalo u ururiyaan ku bixiyaan ay ka horayaan tala siiyaan waxa laga yaabaa qofka maamulka isbitaalka inay talooyin badan ka maqan yihiin oo qofka dadka muwaadiniinta ku jira inay talada keenaan oo tala ku bixiyaan ilaa isbitaalka waxaan rabnaa taladaas u soo kordhinayna isbitaalka dhaqaalahaas u soo kordhinayna isbitaalka contributionkaas u soo kordhinayna isbitaalka waxqabadkaas u soo kordhinayna aad bay mahadsan yihiin muwaadiniinta qayb ka mid ah run ahaantii wixii tala ay hayaan noo soo jeediyaan muwaadiniinta qayb ka mid ah ayaa waxay sameeyaan dawooyin soo gado jeebkooda intay ka soo gadaan iyagoo keena si shakhsi u keena oo ilaahay hortii ula baxa muwaadiniinta qayb badan oo ka mid ah ayaa nagu dhiirigeliyay inaanu isbitaalka wax adeeg noocaas ku soo kordhino aad baan ugu mahadcelinaynaa muwaadiniinta qayb ka mid ah ayaa dhaqaalaha kaga qabatay isbitaalka qayb ka mid ah in la daryeelo hadda qaybta cusub ee hooyada iyo dhallaanka deyrka lagu soo wareejiyo aragtay oo wuxuu ku wareegsan yahay 180 oo korna u ah 3 mitir waxa wareejiyay muwaadiniinta reer garow ayaa jeebkooda ka bixiyay oo sameeyay marka waxaan ku baraarujinayaa shacabka reer Nugaaleed isbitaalka garow cidda u adeegay idinka weeye cidda la rabo inuu service siiyo idinka weeye marka service-ka isbitaalku idin siinaya inaad kor u qaadin si uu dib idinku soo celiyo idinka dib ugu heshiin